Assalaamu calaykum. Sheekadan soo wada waxay ku saabsan tahay dadka reer miyiga iyo dadka reer magaalka ah. Dhaqanka Soomaalida markay noqoto sooritaanka sida dadka loo sooro ama soo dhaweynta dadka yaa macquulsan labadooda yaase dadka sooro yaa soo dhaweeya yaa garan kara qofka baahan 20 qof yaa kala soo dhexbixi kara qof baahan ama 20 qof oo meel 10 qof oo meel fadhida yaa ka garan kara qofka baahan ee isha go'an yaa garan kara markay noqoto dhaqanka Soomaalida miyiga iyo magaalada. Sheekadan marka magaceeda waxa la yiraahdaa albaab shiiq leh iyo waxra jaw leh. Waxa la yiri nin reer muduga waliba deegaanka ciid loo yaqaan ama doolo dadka qaarbasi u yaqaano ayaa waxa jiri jiray nin la oran jiray caanood xareed oo aad u xigmad badan hase ahaatee aan waxba haysan dadka kamid ahaa dadka Ilaahay waxay cuni lahaayeen ugu dareen dadka kale dadka maalka haysta dad kale oo aan waxba haysan baa Ilaahay maalkooda ugu daray dad waxa jira Ilaahay dadka ugu daray maalkooda waxay cuni lahaayeen ugu daray oo halka saaqadooda ku xiran tahay marka wuxuu ahaa nin maskiin oo hadba reer isugu hoydo oo maartay dilay ku dadkaas wax la cuno reer baadiyaha iyo hooyashada iyo waxaas aad maartay u sameyn jiray ayaantii dambe wuxuu keenay fikrad uu shalaayi doono marka la fiicnay laakiin si aad u shalaayi doono markii dambe wuxuu is yiri dadka magaalada ayagaaba la kunyaayo waxbay haysan lagu kunyaa ama ba la majeertaaye dadka magaaladana maad ku dartid bal maanta maad ba magaalada laftigeeda fiirishid bal inaad ku hoyatid mana yaqaan dhaqan magaalo waxba kama yaqaano maantii soo kacay magaaladu yimid magaaladu maantii ildiqleeyay waa wareegay wax la hadla iyo wax gartu waay wax ka baxshu waay adigu waa iska gabal dhacsaday sababtoo waxa weeye dhaqanka magaalada ka jirta waxa weeye martidu casar dheer reer ma soo dul dhoobato martidu saddex xilli bay ku timaadaa baadiyaha dhaqankiisa saddex xilli bay ku timaadaa waxay ku timaadaa marti goor xun socota waa marti habeenbarkii saq dhax imaanaysa iyo marti fiidkii timaada iyo marti maqribadii timaada qaab saddexaad oo marti u timaada ama xilli saddexaad oo marti afraad xilli afraad ay marti u timaada ma jiro aan ka ahayn dad socotaayo la joojiyo la yiri war meesha ku socotaan dad idinkama jiro caawa cilad siixanaysaan oo diboodaysan hana dhaafinin la yiri la joojiyo casar dheer oo waa jiraan dadkaas oo kale laakiin si martidu xillidaas ay timaada marka casar dheer inta la soo dhoobto lama martiyo gabalka u rid buu isiri qoraxdii markay dhacday ayuu wax garta waayay wax la hadla waayay ayuu albaab weyn oo hortiisa ka soo jeedo isiri adgashi albaabkaas shiiq wala soo xirtay albaabkii intuu ku sii dhawaa albaabada geesahaydna shiiq ba ka yartay wala wada xirxiray qoraxdii ay dhacday moogtay waa maqrib qolo walba albaabkeeda xiratay halkaas ku orday albaab kale oo geeskaas jiray uu isira oo dad taagan yihiin buu isira asagana kaabal fiir buu isiri bas wuu ku orday asagana waa la soo xirtay shiiq nin albaab galay uu arkay ninkii buu ka sii daba orday asagana albaabka waa lagu soo xirtay albaabka qab wala soo xirtay meel waxa loo dhaqaaqo male waa gaajaysan maanta wax ma cunin cid garata ma u helin markaas wuxuu raasay waa habeenbar wuxuu raasay wadadii baadiyaha u baxaysay wadadii lacagta saar wax dhaqaaqa male wuxuu wadada cabay saq dhex markuu la sii marayo xilli cisho la dhaafay buu wuxuu maqlay waxa qayladood xaraaci haya waa reer markaas wadada ka leexshay waa reer seexday waxay cuni lahaayeen caawa cunayo seexday salaamu calaykum warwaayo salaamu calaykum wala toosayo waa nin martay war fariiso bal waa markaas islaantii ninkii ka cashayo wax ku tuur waxa yaala shaah waa la kala yaacay waxba lagu soo tuuray ninkii waa la fariis Google baa la siiyo markuu shaahi cabay waa taqaana baadiyaha dhaqan wanaagsan bay baadiyuhu leeyihiin markuu shaahi cabay oo wuxuu cuntadii cunay buu yiri allahayow ilaahow albaab shiiq leh iyo waxra jawle kala jecel buu yiri hadalkaas ka tagay caanad xareed la ku naxariisto wuxuu yiri albaab shiiq leh iyo waxra jawle min daa kala jecel